3 plus unequivocally reject any steps aimed at advancing this objective, including any attempt by Israel to relocate the Palestinian population from Gaza to northwestern region of Somalia. Regarding the forcible displacement of Palestinian people from their land, we call on Israel to comply with its legal obligations on this matter. This is exactly why Somali people is the lions of Africa. Libaaxyada geeska, Lion d'Afrique, afhayeenkeena, geesigeena, halyeegeena, Abu Bakr Dahir Usman, the Somali ambassador in UN. Su'ula hadlayo. Can you imagine? Sidaasoo kale, ninka dictatorka Sacuudi fadhiya, iyo waxaan ku ri Carabta hafhayeenkood maalqabeenada sheekhyada sidaasoo kale uma hadli karaan. Liyaamaad aragtay qof ajaanib uu saas fariisa saas ula galayo nin Yahuud u karbaashay nin Yahuud weligaa arki maysid. Only Somali people, that's how you know. Gaaladu way noo qaybiyeen maaha laakiin inaka dhiigeena weli uu ku jira. Haddaad iimaan leedahay Ilaahi subxaanahu wa tacaala haddaa isku diibtid, nobody can stop you. Wuxuu yidhi Somaliland adigu ma lihiin ma qaadan kartid naga dhex bax. That's it. Somalia is one nation. Diinta Islaamka wuxuu noo sheegay one ummah. Hold on to the rope of Ilahi. Xariga Ilahi qabso. Don't become divided. Somali people we stand on the Bentu fidini anu walla yabe. Oh, genocide. Oh, dadka Isaaq waxaan ku ri Gibili iyo Hargeysa iyo Burco ku nool wala xasuuqay. What about dadka Dila iyo Boorama? What about dadka la laayay Mudug? Imse qof baa la laayay Muqdisho. Oo waxaan ku ri kooda la gubay. How about that? How come the propaganda is only pushing on one side of the region? Let me tell you like the real history. Waxa dhacday xilligii siyaad baray 88kii. Waxaan ku ri marka la rusheynay iyo gebil oda dad masaakiin lagu dufanaynin. Waxa la tiigsanayay asanamta ayaa gantaalaha lagu dufanayay. Tusaale ahaan adigu oo for example guriga baad joogtaa nin asanam gurigaagu ku dhex fadhiya ma siyaad baray uu og yahay intelligence uu og sarkaaladoodu way og yihiin. Okay, ninka asanamta xagaas buu jooga. Boom. Ora u dir meeshaas. So markuu kugu diro dhac uu dhimanaya ma it's going to spread. So marka you're going to hurt too as casualties. Let's say ninka asanamta xagan buu Djibouti buu jooga amba Gabood buu jooga for example. Antaalo buu ku dhufanaya xaafadaha kamida Gabood. Place de la Siesta aduu joogo. Waa lagu diraya meeshaas. So dadka hareeraha fadhiya they're going to feel the effects. So it's not that genocide happened. It was you targeted specific areas. Yuhud Ilaahay Quraanka uu noo sheegay. Dadkan Ilaahay ma caabudaan waxay caabudaan rabbi. Okay? Dad daacad maaha way ka daran yihiin gaalada. Daacadid inaad caalamkooda u sujuudid. Absolutely unacceptable. Abraham Accord waa diinta Islaamka uu ka baxsan yahay ma qaadanayno. Madaxdeena if they became puppets caadi ayaga u taala laakiin inaka dad muslimiin baan nahay. That's it. Diinta Islaamka lagu dhaqmo.